سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. داود القضاء بدأ أدوار كنا قلمنا كم أغلي دونتان وحاكم ذا تقال حقنا يا سومالي دي عن فرتو دحية وهالكيسي كسي سعودية سومالي دا أقول بدن شيئا إسا سيدو كلا تقال حقنا يكسعودي قلبات كإثيوبيا ولا شيئا إني مقالو وين أي تقال دو كسيفا فهيان sidoo kale waxa la soo sheegay gobolka Tigray magaalada Shire in dad baahi ugu baabeen sidoo kale gobolada Oromiya waxa la soo sheegay dagaal goosgoos oo u dhaxeeya jamhadda Oromiya iyo dawladda federaalka in halkaas dad shacab lagu xasuuqay qodobadaas oo faahfaahsan ayaad warkeena ku maqli doontaan taariikhdu waxay ku beegan tahay 26 bisha 8 2021 haddaynu u guda galo wararkeennii oo faahfaahsan dawladda Soomaalida Itoobiya ayaa waxa ay sheegeen dagaalkii shalay ay soo qaaday canfarta in gabi ahaanba cagta la mariyay maleeshiyaadkii dagaalka soo qaaday ee ka socday gobolka canfarta maleeshiyaadka gobolka canfarta ka soo weerartay ayaa waxa la sheegay inay ku labisnaayeen dharka shacabka hase yeeshee ahaayeen ciidamada gaarka ee liyu booliska ee canfarta oo sida gaarka u tababaran canfarta ayaa weerar gaadmaha shalay waxay ku soo qaaday barqinimadii ciidamada dawladda Soomaalida iyo shacab dhulka ku sugnaa dagaalada oo ilaa shalay socday oo 10kii galabnimo la isla soo gaadhay ayaa waxa la sheegay in cagta la mariyay canfarta ciidamada liyu booliska dawladda Soomaalida ayaa guulo badan sheeganaya waxayna sheegeen ilaa 3 magaalo inay gacantooda soo gashay oo markii hore canfartu ka talin jirtay dagaalkan canfarta iyo Soomaalida u dhaxeeya ayaa waaye hore soo bilowday dhowr sano ka hor hase yeeshee ilaa waqtigan wax xalaalo ma helin markay dagaalku dhacaan sida ugu dhaqsaha badan dawladda federaalka Itoobiya ayaa hadli jirtay waxayna dhihi jirtay dagaalka hala joojiyo Soomaaliduna meeshoodii ha ku laabtaan canfartuna markaaba baroorta ayay la dhici jirtay hase yeeshee hadda waxaad moodaa in labada dawlad deegaan ay ayagu gacmahooda isula tagi doonaan maxaa yeelay dawladda federaalka Itoobiya ayada ayaa mashquulsan oo teedii haysata dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa la sheegayaa inay hadda jaanis balaaran haystaan oo ay canfarta dhulkooda kaga qaataan sidoo kale shacabka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa ay sheegayaan inay hiiliyo hooba la kala taagan yihiin ciidankooda waqtigeena la joogo waqti la xoreyn lahaa degmooyinka la haysto dalka Itoobiya oo moodin inay dagaal ku habsadeen aan la garanayno waqtiyada ay dhamaan doonaan ayaa waxa la sheegayaa deegaan kasta inuu dagaal ka socdo dagaalkaas oo u kala dhaxeeya ama dhaxdooda ama qoomiyado sidoo kale dawladda federaalka ayaa waxay u taaglaadahayba kooxda TPLF wax kale ka hadasho ama dawlad deegaano kalena haba sheegin sidoo kale dawlad deegaanka Soomaalida ayaa waxaad moodaa inay waqtigan si fiican isu diyaariyeen oo deegaanka canfartana ay ku tala jiraan inay ka soo celiyaan dhulkii ay hore u qabsadeen sidoo kale dawlad deegaanka Soomaalida ayaa waxa la sheegay ilaa saaka gurmadka ciidanka lagu taageerayo inuu sii socdo shacabka gobolka Sitina si weyn bay soo abaabulan biyaha iyo wax walba way la garab taagan yihiin ciidamada sida la sheegayo magaalada Cadaytu Candhuufto iyo Garbaciisa ayaa waxa la sheegayaa inay hadda gacantooda ku jirto ciidamada dawladda deegaanka Soomaalida waa liyu booliska dagaaladan oo soo bilowday waqtigii dawladda Cabdi Ilay lana sheegay dawladda Cabdi Ilay inay ku wareejisay deegaanadaasi gobolka canfarta ayaa waxa la sheegayaa dawladda Mustafa inay hadda ka go'an tahay inay soo celiso maxaa yeelay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar waxa la sheegayaa inuu marna raali ka ahayn dhul Soomaali leedahay inuu raaco dhul kale hase yeeshee cadaadis kaga imanaya dawladda federaalka inuu ku qasbanaaday inuu dhulkaasi ka aamuso sidoo kale waxa la sheegayaa madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida in lagu la taliyo waqtigan inay tahay waqtigii la soo celin lahaa deegaanka maxaa yeelay lama garanayo xaalka Itoobiya meesha uu ku dambeyn doono ciidamada dawladda deegaanka Soomaalida oo ah ciidamo aad u awood badan ayaa waxay ahaan jireen ciidamo caan ku ah meelaha ay weerarka ka fuliyeen sida ugu dhaqsaha badan inay gacanta ku dhigaan hase yeeshee waqtigii Mustafa Maxamed Umar wadanka talada qabtay ayaa waxa la soo sheegayaa inay ciidamada moraalkoodu aad u jaban yahay dagaalkana ayna daacad ka ahayn waqtiyadii dambe dagaaladii dhacayay ayaa waxa la sheegayaa inay ciidamada dawladda deegaanka Soomaalida markasta guusha laga qaadan jiray
sidoo kale ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida ayaa la sheegay waqtiyadan dambe in ayna daacad ka ahayn gudaha iyo dalkaba amnigiisa inay wax ka sugan maxaa yeelay ciidamada waxa la soo sheegayaa inay faragelin gudahooda ka jirto dhaxdooda daacidnimadii ay ka baxday sidoo kale qodobada kale wararkeena ku maqli doontaana waxa kamid ah gobolka Tigreega waxa laga soo sheegayaa gaajo iyo macluul badan inay magaalooyin badan ugu baabayaan dad shacab ah hase yeeshee kooxda TPLF ayaa ayadu markasta waxay ku doodaysaa dadkan gaajaha u badhintay inay difaac kale u baahan yihiin kooxda TPLF ayaa ayadu dagaal waxaan ka aynaan xal u arkin ilaa ay laga xoreeyo dawladda federaalka lagana saaro dhulka ay kaga sugan tahay sidoo kale dawladda federaalka ayaad moodaa wax caawimaad ah inay laba daba taagneen shacabka Tigray ilaa dagaal waxaan ka ahayn dawladdu waxay u aragtaa caqabada koobaad inay tahay kooxda TPLF hadii laga saaro gobolkana Tigrayga in dawlad loo dhisi karo dawladuna ay caawin karto shacabka hase yeeshee dawladda Itoobiya ayaad waxaad moodaa inay gobolka Tigrayga u aragto cadawga koobaad sidoo kale dagaaladii xoogana ee ka socday galbeedka dalka Itoobiya ayaa waxa la sheegayaa inay ka sii darayaanba warbaahinta dalka Itoobiya ayaa waxay sheegaysaa dagaalku in faraha la sula tagay hase yeeshee wax ka soo warami kara ama meelaha gali kale aan jirin labada kooxood ee dagaalka isku haya wahuwanta ay dawladda federaalka hogaaminayso iyo kooxda TPLF ayaa waxaan moodaa dagaalkoodii inuu hadda isla aamusay oo la garanaynin qolada firadu ka daba kici doonto ee wadankana ka tagi doonta hase yeeshee sidoo kale waxa la soo sheegayaa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed inuu dalka Kuuriya safar ku tagay ra'iisul wasaaraha ayaa waxa la bariyahan dambe taageero caalami ah raadsanaya asagoo kooxda TPLF umarala ra'iisul wasaare ku soo koray nooc askarinimo ah mana adkaan doonta sida inuu si dhib yar dalka looga saaro ra'iisul wasaare Abiy ayaa wuxuu ku loolamayaa inay maraba dhici karin kooxda TPLF inay dalka gacantiisa ka maroojiyaan maxaa yeelay kooxda TPLF wuxuu arkaa inay koox tabar yar tahay dalweynihii Itoobiya asaga gacantiisa ay ku jirto sidoo kale gobolka Oromiya waxa laga soo sheegayaa dagaalo culus oo u dhaxeeya jamhadda Oromiya iyo ciidamada deegaanka Oromiya waxa la soo sheegayaa dad shacab ah badan in xasuuq loogu geystay gobolka Oromiya ayna uga qaxeen naftooda dhulkoodii gobolka Oromiya sidoo kale dagaalada xooggan ee u dhaxeeya ciidamada liyu booliska Oromiya iyo ciidamada xoreynta Oromiya ayaa waxa la soo sheegayaa inuu dhul badan ku sifaafayo usbuucii la soo dhaafayay kooxda Oromiya xoreynta Oromiya loo yaqaan ayaa waxa ay sheegtay inay magaalada Addis Ababa u jiraan 50 kilomitir hase yeeshee hadalkaasi wax cadayna uma hayno kooxda Oromiya ayaa waxay la kulmaysaa iska caabin badan oo kaga imanaysa dawladda federaalka Itoobiya ayaga oo la sheegaya inay ciidamo badan oo ka tirsan liyu booliska Oromiya ayba ku biireen kooxdaasi tan iyo kulanti dambe waxaan leeyahay salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.